isbuucan waxaan kaga hadli doonaa style ama waxa loo yaqaan Aboota Tuu Tuu oo kasoo baxa baararka indhaha iyo waxyaabaha looga hortagi karo ayaan videogan idinku soo gudbin doonaa sidoo kale habka looga hortagayo inaan dib ugu soo laaban daawasho wacan markale waa anigoo Dr. Yaxya ugu barateen muuqaalada ku saabsan caafimaadka indhaha iyo aragga isbuuca maanta wuxuu ku saabsan yahay style ama Aboota Tuu Tuu oo kasoo baxa baararka indhaha caafimaad ahaan waxa loo yaqaanaa hordilom waa maxay Aboota Tuu Tuu Soomaalida tiraahdo ama style ama hordilom midii marka loo yaqaano waa infection ku dhaco baararka indhaha waxaa loo qeeyaa laba qaybood oo ah inuu ka soo baxo baarka korkiisa ama gudaha oo waxay u kala baxaan external iyo internal marka qaar waxaa suurtoobaysa inay dhibic yar ama u muuqato fin yar oo kale haddii nooc fin ah ku aragtid oo kale inay ka soo baxayso baararka indhaha ha isku day inaad mataqaana aad dhiijisid ama banaanka u soo bixiso sababtoo ah haddii aad dhiijisid waxaa suurtagal noqon karto in infectionka uu sii dheeraado oo maaragtay gudaha uu sii galo sida awgeed waxaan hadda aan idin sheegi doonaa talooyin muhiim ah oo markaa hababka ka saacida in dib kugu soo laaban xaaladan loo yaqaano style ama hordilom ama Soomaali ahaan hadii la dhaho Aboota Tuu Tuu talada koowaad waxay tahay oo dhaqaatiirta ay u qoraan antibiotic ama qalajiso waliba antibiotic waliba saameynta leh waxay tahay mid oralka oo afka laga qaato inkastoo marka qaarna loo qoro kuwa topical boomata ama goojo waxay rabtaa ha noqoto oo indhaha loo isticmaalo taas oo ku xirnaan karto infectionka noocu yahay marka qaar waxaa laga yaabaa bacteria inay markaa dusha saaran tahay baararka waxyaabaha sababo xaaladan loo yaqaano Aboota Tuu Tuu waa bacteria nooc kamid ah ee loo yaqaan Staphylococcus maadaama bacteria ay sababto antibiotic markaa ama qalajisada Soomaalida u taqaano saameyn weyn u leedahay in mataqaana ay xaaladan ay controlsho intaas waa daawooyinka caadi ah loo qoro laakiin waxaa jira waxyaabo qaar oo qofka asigoon daawo isticmaalin uu iska baabi'i karo sababtoo marka qaar buwaagta da ku laabatid waxaa arkaysaa in ay saameyn weyn leedahay in la saaro hot compress ama wax cool in la saaro laakiin arinta cajiibka leh waxay tahay marka qaar dadka qaar waxa arkaysaa wax qandiran saar laakiin wali ay ka bixin sirta ka dambaysa waxay tahay waxay ku xiran tahay habka u saaraysid waqtiga aad saaraysid iyo inta daqiiqadood aad ku haynaysid iyo waxyaabaha u adeegsanaysid lafqudeeda aad qandirinayso isha aad saaraysid waxyaabaha qandiran aad saaraysid lama rabo waxa mataqaa shukumaan ama wax yar inaad saartid oo waxaa jira qalab gooni oo loo isticmaalo sida eye maskiga waxyaabaha marka muhiimka waxay tahay waqtiga aad saaraysid ugu yaraan waxaa la 10 daqiiqo isku xig ah inay u saarnaato baarka indhaha dadka qaar ayaa marka ku dhacaan arintan oo sababtoo waxay ugu dhacayaan wax qandiran ay soo qaadayaan oo ama dhar ama wax qandiran markay saaraan way qaboobaysaa way laabanayaan mar labaad ay qandirinayaan marka meesha waxaa ka baxayso 10 daqiiqo isku xig ah in meesha ay saaraan meesha ay ka baxaysaa sida awgeed waxaa lagu talinayaa in isticmaal maskiga indhaha lagu xirto maskaas marka ay qandiriyaan ama xataa meelaha waxaa jiro microwave oo kale dhex geliyaan markuu kulaado indhaha ay ku xirtaan habeenkii ay ku seexdaan ama 10 daqiiqo 20 daqiiqo 30 daqiiqo ay ku hayaan oo isku xig ah markaas saameyn weyn ay leedahay frequency-gan waa muhiim ah inta jeer ay ku celinaa maalintii waxaa la 3-4 jeer in ay ku celiyaan hababkaas waxaa weeye hababka ugu muhiimsan oo xaaladan looga hortagi karo sidoo kale aad ugu hortagi kartid in dib ay kugu soo laabato qodobada aan sheegay mid aad ku saaciday sidoo kale misku aragtaa in ay xaaladan ay kugu soo laabanayso adiga ahaana sidee u waajahday waxaad igu la wadaagtiin qaybta commentiga waxaa inoo balna video insha Allah